Garoonka diyaaradaha magaalada Muqdisho ayaa ka soo degatay diyaarad 8 ilaa 40 maxaabiis Soomaaliyeed kuwaasi oo laga keenay wadanka India. Maxaabiistaasi in muddo ku jirtay xabsiyo ku yaala wadankaasi India. Waxa ku soo dhaweeyay garoonka diyaaradaha magaalada Muqdisho ra'iisul wasaaraha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Mudane Xasan Cali Khayre, gudoomiye ku-xigeenka labaad ee golaha shacabka Mudane Mahad Cabdalla Cawad, wasiiro, xildhibaano iyo mas'uuliyiin ka tirsan dawladda Federaalka Soomaaliya, kuwaasi oo si weyn ugu faraxsanaa maxaabiistaasi Soomaaliyeed in xurriyadooda ay helaan, ciidooda hooyana ay dib ugu soo laabtaan. رئيس الوزراء دولة فدرالك الصومالية مدن حسن على خيره أيها الشيخين محابيس أنا يقيب قين محابيس فربنا ولا Laga Soo Dejiyay قار كمذا والضمذا عالمك وهنا الشيخين رئيس الوزراء إن دولة فدرالك الصومالية أنا يوفريسن دونين أنت محابيس صوماليد أي كجران حبسية عالمك وأنت تسير راعي رئيس الوزراء دلك إن محابيس جارية الضباط تنكلوا كجرا حبسية دلك إنديا دوان لسود دين دونو dhinaca kale Mahad Cabdalla Cawad gudoomiye ku-xigeenka labaad ee golaha shacabka Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya ayaa uga mahad celiyay xukuumadda Federaalka Soomaaliya dadaalka ay ku bixinayso sidii maxaabiista Soomaaliyeed oo ku xiran jeelasha caalamka ay xurriyadooda dib u heli lahaayeen. Dawladda Federaalka Soomaaliya waxa ay ku guuleysatay inay sii deyso maxaabiis fara badan oo laga keenay wadamada India, Ethiopia, Seychelles iyadoo dadaal kale ugu jirta sidii xurriyadooda u heli lahaayeen maxaabiis kale oo daafaha caalamka ku kala xiran.